الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore magacaygu waa Cabdiraxiin Axmed Maxamed. waxaan ka hadlayaa ahamiyadda ay hooyadu ugu jirto bulshada. marka aan leeyahay ahamiyadda ay hooyadu ugu jirto bulshada, waxa laga yaabaa qofka bini'aadanka ah ee 60 ka gaaraya noloshiisa marka laba loo qaybiyo badh inay isagu soo kaabto, taasina waa run ama xaqiiqo dhacda. qodobka koowaad, xaqa ay diintu siisay ka ama xadiis ha noqoto ama ayadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha noqoto. waxa laga wariyay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu nin u yimiday kuna yidhi man axaqa annaas ilaya ya rasuulallah, aniga agtayda dadka iyama igu khayr badan kaan xaqa siiya inta mudnaanta. wuxuu ku yidhi markii koobaad hooyada, mar labaad ku celiyay muxuu ku yidhi haddana hooyada, mar saddexaad buu ku celiyay haddana hooyada buu ku yidhi, saddex jeer markaa ku celiyay, mar afraadkii buu ku celiyay muxuu ku yidhi marka dambe waa aabaha. beri baa wax dhacday, asxaabi ayaa hooyadii intuu dhabarka ku qaaday ayaa wuxuu ku geeyay xajkii. dana khalifadii mid ka mid u yimiday wuxuu ku yidhi xaqii hooyadii ma guday, waayo dhul fog oo xajka ka fog intaan dhabarka ka soo qaaday ayaan xajkii ku geeyay. dana wuxuu ku yidhi iska daa intaad soo noolad waxay kuu soo qabanaysay ee waxaanad abaalkeeda gudin, mar keliya oo qaydka lagu xambaaray ilmaha intuu u dabcay ay naxday. qodobka labaad, caasinimada. qofka hadduu waalidka caasiyo maxaa ka iman kara? hadduu saadeeco maxaa ka iman kara? aan ka horeyna caasinimada. qofku waalidkii gaar ahaan weliba hooyadii markuu adeeci waayo, waxa xaqiiqa oo dhacda nolosha intiisa badan inuu madmadow ka galo. sheeko ayaa dhacday, inan yar baa wuxuu ahaa qalqaali, markaa aabihii wuu ka quustay, dhinac walba wuu xidhay, meel kastuu geeyey, jeelka wuu kusoo xidhay, wuu ka quustay. hooyadiina niyaduun bay u dejin jirtay, marka lasoo xidhay iyadaa kasoo furi jirtay jeelka. maalintii dambe ayuu aabihii maxkamadda tegay, waran buu soo goostay in inanka la geeyo Madheera. kabacdi dhowr bilood markuu ku jiray ayay hooyadii ugu tagtay. waxay ku tiri, hooyo sidee lagula macaamilaa, si fiican dadku ma kuula dhaqmaan, ka waran xaalkaaga, jawiga meesha. wuxuu ku yidhi, hooyo meesha dad wanaagsan baa jooga, si fiican waa layla dhaqmaa, meesha si fiican ayaa layla macaamilaa. idana waxay ku tiri, waan tegayaa hooye garabkaaga. bacdeen wuxuu ku yidhi kaale ku dhunkade. saasay ku tiri, labadaa dabnood ayuu ka goostay, uu ka qaniinay kaa uu ka goostay. dhiig isagoo dareeraya ayaa waxay ku noqotay u qaadan waah, wadnihii baa istaagay, way dhimatay hooyadii. kabacdi waa loo yimiday, waxaa lagu yidhi maxaad hooyada waxaa ugu samaysay? wuxuu yidhi hooyadii dembiga iyadaa lahayd, waayo markaan dad soo dilo ee la xidho way soo dayn jirtay, qaladkaa iguma odhan jirin ka joog, tan aan maanta Madheera laygu xidhayna iyadaa u sababa. markaa sidaa darteed baan u qaniinay buu yidhi. haddaynu ka sheekayno adeeca, qofka adeeca muxuu helayaa markaa? rasuulka waxaa laga wariyay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi jannadu waxay taallaa labada lugood ee hooyada hoostooda. yacni marka haddii waxay kuu dirto ama sida ay kuula dhaqanto ama waxay kuu dirto aad sidooda uga soo baxdo ay markaa kaa faraxdo, waxaa laga yaabaa inaad jannada ku gasho. beri baa waxaa dhacday, inan baa hooyadii aad buu ugu adeegi jiray, wuu adeeci jiray, in badanna wuu shaqayn jiray, hadalkay ku tiraahdo sideedu uga soo bixi jiray. bacdeen markaa muu arki jirin teknolojiyadii, waxaan muu arki jirin. albaabada Soomaalida inta badan waa ta la iska furo. dibay buu tegey, madaarkii isagoo ka baxaya ayaa waxaa jirta caalamka albaab saa u furmaya, markaad saa u istaagto miisaankaagu dareemaya u furmaya albaabkii. waxaa dhacday inuu albaabkii galay, markaa albaabkii isagu gacantuu la tiigsaday eemuu wuxuu ka waday inuu iska soo furo albaabka. dadna albaabkii markuu miisaankii dareemay ayuu albaabkii isfuray. bacdeen hooyadii waxay ku odhan jirtay, hooyo albaabkaad istaagtaba lagaama xidho. yacni hadday arsaaq tahay, hadday ciidaad wax ka doonayso tahay, meelna lagaama xidho.
wuxuu xasuustuun ducadii hooyadii ee ahayd hooyo meelna lagama xidho dadna albaabkaad gashaaba ha ku furmo albaabkii uu baas ka furmayo dadna ragii ka dambeeyay ma u qaadanin inay ku raahdaan waa tiknoolajiyad waraxas ma sheegay waa ducadii hooyadii taasina waa tii adeeca waalidka haddaba hal abuurka ama suugaanyahanada Soomaaliyeed waxay ka yiraahdeen arinta suugaanta iyo sidii ay u xustay waxaanu ka tilmaan qaadan karnaa abwaanka weyn ee Ilaahay khayr ha siiyo abwaan Hadraawi oo isagu dhowr laba maansa kale laakiin inta badan waxaad arkaysaa da'yarta ama dadka waaweyn ee hal abuurada ah maansooyinkooda lagama waayo mid hooyo ku jirto kow Hadraawi marka labaad isaguna Ilaahay ha u naxariistee Carays Ciise Kaashe wakiilaha hooyadu waa lama huraan sidoo kale waxa isaguna ka hadlay abwaan Mursal oo isagu inta badan uu hooyada ka sheekeyn jiray maansooyinkeeda una dadaal jiray inta markaynu ka imano hooyadu waxay ugu jirtaa bulshada kaalin muhiim ah waxayna bartaa ilmaha akhlaaqda iyo dabeecadda wanaagsan soo ilmuhu hadhow ugu barbaaro dad la socon wanaagsan akhlaaq wanaagsan iyo waliba la mucaamalka dadka oo hagaajiyo inta badan markaad aragto caruur yar yar ama aniga hay leekadaan ama hayga weynaadaan oo marka caayaya qof isaga leeg ama ka weyn Soomaalidu inta badan waxay tiraahdaa gurigoodu kale mid beenna ma hataasi yani qofka ay hooyadii ku barbaariso akhlaaqda wanaagsan waxa laga garanayaa caayda ma yaqaano sidoo kale dadka oo afka loo taaga ma yaqaano inta badan akhlaaqdiisu way wanaagsan tahay qofkaas qofka isagoo yar ay hooyadii ka dhimato kaasina sidoo kale isaguna uu dareemaya waxa laga yaabaa kaas marka inaanay hooyaba is arago wada wuxuu doono ku kaco ama wuxuu doono uu sameeyo barnaamijka intaas aan kaga qayb qaadanaya Ramadaan Kariim hooyadana ha looga ilaaliyo